مسؤولين كسعتي السياسيات كقرن التوفيق ويجوا مالمهم بالصعداء لوجو مقعدين سموات كمري قار كمدة دجاجنا دباريجا قبل كم مدوجا أي جاري دجمة وسيل قبل كم مدوج وحنا مركل كاسي جارين سمك يميسان لوصل ويبولشة قيبو دكلا دوان الريد وسيلات كواسي أو موجنية درين كوادن تاجرة أيوهيان السياسات كتوفيق قار كميدا شعب كدقمدا وسيل أيانا وهرين كهالله مناسبة السود وين تقلوا سمية مسؤولين تنكسعت السياسات كتوفيق. هذا علينا السياسات كحزب توفيق وبانكي سوى هيو قدومية دكتور شيخ محمد شاكر علي حسن أو وطه أو قدومية ويا دكتور شيخ محمد شاكر علي حسن أو وطه باللدة لديالك خوارج marka walaalayaal maanta anaga xora codkan xor ah oo difaac ku jirna inay noo yimaadaan culimadiinki waxaan leenahay aad iyo aad hambalyo soo dhawaada leenahay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof ka badbaadiya khawaarijta waxay halis ugu jirtaa Soomaaliya khawaarij waxa ugu jirtaa halis ugu jirtaa maanta horumar kalete iyo badda biyo ka dhigaya wadan la min saaraya maanta loo arko aadaguna wuxuu baahan yahay in lagu dagaalamo aqoonta lagu dagaalamo oo qalbiga laga dagaalamo buu baahan yahay maana الدبابات الديارات من عبانا توفيق تامنا الله نسيه حسبك توفيق وسود ويننا قوليست الدنيا آخرة الدنيا كان بلايين الله إذا كهيو آخرنا جنة الفردوس الله ينسيه دقمة الوسيل وأهل السنة والجماعة والتوفيق وشيخ شاكر والله بالله والله ما نلعب كرسين يا وقت يا مالكم بحل أنت واحد ديركا أنت واحد ديركا شيخ شاكر وحو قلبك إنه وجود شراء وقلوبته إنه وجود شراء ورسولك يجري معهن دوبا لما قتلوا أو قتلوه يا كورسنا النمر وأنك أكا أنت قاطع وبر لجاي على الشباب من يتم كيف شتى قارئ عن حبة كريم كتشرة مين دورنا ودلنا هنا دورنا شيخ فرنجوجا شيخ أكجوجا شيخ عيد اللجوجا شيخ مجاهدك شيخ آيد يقرأ أكا يسافت سكوت أنت جرينا كنت شيخ شاكر محمد علي حسن وهو تاع عقيدة قرة وجريتان أي لصعته عقيدة ما حد يسكتنا شرحنا ومدى الصومالية قربتي شيخ شاكر يحسب أهل السنة والجماعة قاسة توفيق عقيدة رسمية أو الشباب نحاول فكرته دين الإسلام كويل اللي تكون أنا ديني كرته والله وبالله وطلع شيخ شاكر دو الصومالية قربته لا يتنبري على الشباب وقت xubnihii ka socday siyaasadeedka Tawfiiq ayaa iyaguna ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda loogu magac daray samawade siyaasadeedka Tawfiiq wuxuu ku suntan yahay ciribtirka kooxda khawaarijta oo nafl caariga ciribtirkeeda iyo leynteeda iyo baabiinteeda ku suntan yahay dadka degmada degan waxay ku suntan yihiin halganka gobonimo dirka iyo inay shabaabka ka saareen deegaanada ayay ku suntan yihiin maanta waxay ka dhigan tahay in ay midoobeen laba awoodood oo waaweyn oo midna ay dalka qaybo badan oo kamid ah ka jirtay oo ahlu sunna wal jamaa iyo dadka degmadan awoodoodii in la mideeyay ayay ka dhigan tahay ururka haddaan warbixin yar idinka siiyo faahfaahintiisa iyo warbixintiisa idinkoo haya ururka Tawfiiq waa urur Soomaaliyeed gaar ahaan waxaa hoggaanka ahlu sunna wal jamaa waa urur qorshihiisu yahay in Soomaaliya la hormariyo oo la nabdeeyo oo dhibaatooyinka iyo qallalaasaha iyo wixii ay ku jirtay laga saaro waana rajaynaynaa insha Allah taala inaan ku guuleysano ururka waa la diiwaan geliyay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo xisbi oo dadku ay u codeeyaan degmooyinka sidaan looga taageersan yahay ururka oo sidaan loo soo dhaweynayo waxay noqon doonaan insha Allah taala degmooyinka dadkii anfici lahaa oo hogaamin lahaa ayagu soo saarta ururka Tawfiiq aad buu ugu faraxsan yahay waana waxa uu maleeyahay maanta in halkan looga soo dhaweeyo dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waana idin mahad celinaynaa إن شاء الله تعالى أروركنا وحو أهمية قارة سين دونا إن شاء الله تعالى دقمدان يدد كيدو
qaabkii iyo masiirkii iyo halkii ay ahaan lahaayeen iyo meeshii loo jihayn lahaa uu ahmiyad gaara siin doonaa. ugu dambayn wakiilka urur siyaasadeedka qaran ee tawfiiq ee deegaanada galmudug Awil Nuur Cali ayaa uga mahad celiyay shacabka degmada Wisil sida ay ugu muujiyeen taageerada iyo garab istaaga isagoo sheegay in looga baahan yahay shacabka degmada Wisil in ay u diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ah ayna rajaynayaan in ay codkooda siin doonaan urur siyaasadeedka tawfiiq oo horay waxqabadkiisa loo arkay. reer Wisileed waxaad muujiseen Allah ayaa mahad iska leh waxa qulubtiina ku jira ayaa si cad u muujiseen waan idinkaga mahad celinaynaa. waxa ay ku suntan tahay Wisil magaalo difaacaadka gobolka Mudug waxayna qol walbaana mataanay leedahay mataan waxay la tahay halganka la dagaalanka khawaarijta annaguna waa ka markhaati kacaynaa. reer Wisileed ilaa ayaa amaalkiina gudi kara cid ka sokaysaa ma gudi karto markii laga sheekeeyo sida khawaarijta uga soo dirirteen sida tawfiiq soo dhaweynta ugu samayseen sida rag iyo dumarba ugu soo baxdeen ururka tawfiiq waxa ugu badan oo uu danaynaya waxay tahay inaan laga helin Soomaaliya qof khawaarija oo diin qaloocan ku faafiya ama si khaldan qof islaam u dila annaga ayadaasaan rabnaa inaan ka dhigano lambarka koowaad ee Soomaaliya ugu tartano. ma noqon doonto sida hadda dawladii ama naga horeeyay iyo hadda inay mar alaala markii qof shabaab ku soo daalo oo markuu kun dilo iyo boqol tirsiga lagu dhaxayso in haddana xilka ugu mudan loo magacaabo dadka islaamka ma dhici doonto meel ay ku soo xagaa baxaan shabaabku xilal ka helaan inay noqoto hadda tawfiiq gacantiina ku soo saartaan. waxaan rabnaa meel kasta oo aad joogtaan inaad xor u noqotaan inaad caqiidadiina ku adkaataan salligiina nabiga qaadaan siyaarooyinkiina wadaan islaamka fiqhiga bartaan madaaristiina hirgasho wasiila ma isla qaadanaa. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacay.